xaaladda caafimaad ee wariye Cabdiqaadir Cumar Cabdulle oo wax looga qaban waayay gudaha magaalada Muqdisho ayaa maanta loo qaaday magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya si sare loogu qaado xaaladiisa caafimaad waxaana gacan ka geysatay qaaditaankiisa hay'adda dhalinyarada UYS. wariye Cabdiqaadir Cumar Cabdulle ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International Airport waxaa ku sii sagootiyay baada warfaafinta iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ku meel gaarka Soomaaliya waxaana hadaladoodii ka mid ahaa ورياشك اللي دلتنا إلهي هم حريصهم مركو حنا عبقادر إلهي ما عارفيه حتى لو حق البورت سجايا أو جالسين وجدال في عزمات في المصعد دوني يو عيسى هذا لو أنا كرت تاجنا إلا أو تعرف ما هذا عبقادر بس عزمات ما تبي ما يعزمات تعرف وأنتي وحنا نهد علينا إلهي معبودنا وما يزلوا أيضا سبحان سابتين أي هوشة وحكا وطيس مركنا لو عيسي بالبادسو وحنا إلهي بطاعة نهد علينا سيدة عن دكتور صوماليا ذي وصفري كران عاون كران أيضا عن عدلو إيجل وحنا كم نهد علينا هوشة طبعا هي هيدا وأنتنا عليها هاي وواحد صوت الرئيس مدى صوماليا وصوت الرئيس ديري قليل في عنا كله إن صوماليا دحلوا كعنا استثنيان عبقادر وكم جاي ولياشة وقف فرعون ولوجه عليها ذلك يتبدل ممكن وامدنا مرة إلا قال لكن على ضعف مدى أولاد وقت المسامين عن ربعنا بما هذه الدنيا UYS ويسحكم فينا وممكن يسكح القامي فكر كلنا وبصور حي وقاضوا إلهي وعن كبرينا ينسوا السلام عليكم عبقادر ونبض قوان إنه نوصل لابطه لما بهذا الصحافة وعن لقبنا حنون كثير من بدأ يبقى السنة ونرى كاوينا عنك قبلها ونجرب كأجنا واحد من مشان يكفين. وهي ما هذا الحكمة الله سبحانه وتعالى وعن ربعنا مع الجارة عن هذا UYS وأنت كان اللي حال لحقادنا يستحق قادتانك أما دوينك عبقادر عمر عبدالله سأل الله وضع مقالة نيروبي الدولة كينيا نرسي قد أنا أبغى صحافة جارهان يونيفرسال ووقف أحسن هاي إن ورالكن صاحب كان لقابة inkastoo hawshan ay lahayd hay'ad warfaafineed ama hay'ad dooda xuquuqda saxafiyiinta ay lahayd ay qabato arrintan iyada ah laakiin waxaan uga mahadcelinaynaa hay'adan sida qiimaha leh sida sharafta leh ay walaalkeen ay ula damqatay in ay u qaado waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aanu ka rajaynaynaa in Cabdiqaadir oo lugihiisa ku socdo caafimaad qaba mar kale inaan muqdisho isugu imaano insha Allah Cabdiqaadir waan u duceynaynaa waxaan ku shaqaynaa mar kale aan kaga tureynaa falkii waxasnimada lahaa in ay ku qaarijiyeen rabeen walaalkeen Cabdiqaadir Cumar Cabdulle laakiin ilaahay uu yiri maya uu isleeyahay ayaan markana dusha cambaareen kaga tuuraya dawladda ku meel gaarkana waxaan ka codsanayaa inaysan ka seexan arrintaas ilaa ay haddana cid loo soo qabtay ama cid lagu tuumay oo dawladdu ay ku soo qabatay qaleeratay ma jirto. wariye Cabdiqaadir Cumar Cabdulle ayaa inta uu ka ambabixin garoonka Muqdisho waxa uu ka warbixiyay xaaladiisa caafimaad isagoona u mahadceliyay hay'adda gacanta ka geysatay qaaditaankiisa. maanta waxaan ahaa wadadii bisha waxaan ku jiray ilaa iyo haatan isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray dhaawac dhanka lafta ah waxaa go'ay xilka halbowlaha iyo sidoo kale jab soo gaaray qayb ka mid ah dhaawacaasi waxaa lagu guulaystay in la daweeyo oo ay ka mid tahay in halbowlaha la xiriiriyo
dhaawacana qabo oo soo bogsado laakiin qaybtii jabka ayaa dhiman waxaana aan rajaynayaa maanta loogu waxaana u mahadcelinayaa hay-adda dhalinyarada Soomaaliyeed iyo UIS oo gacan ka geysatay sidii dalka dibadiisa laga gelin lahaa magaalada Nairobi waxaan rajaynayaa insha Allah